waa tahay saaxiibayaal saad u jeedaan waxaan maanta xafiiskiisa ku soo booqanay wasiirka kalluumaysiga dawladda Puntland Faarax Maxamuud Cawaash mal wasiir waxaad nooga warantaa in waxa soo caariday nibiri ku soo caariday xeebaha bari ee degmada Qaw bal faahfaahin naga sii arinta ayada adoo u waramaya raadiyaha dawladda Puntland waayahay waa maasantiin raadiyaha dawladda Puntland waa sax maalinnimadii Khamiistii gelinka dambe ayaa biyaha xeebta waa biyaha gunta dhow ee xeebta ah dadku ku dabaashaan nibiri lagu arkay dad aad u yar baa markaas joogay kadibna casarkii jimcada oo shalay ahayd ayaa lagu arkay xeebta isagoo banaanka yimi marka wasiir maxaa sababay in nibirku soo caarido ma la is oran karaa roobabka faraha badan ee ka da'aya badda ka da'aya baa sababi kartay nibirku soo caarido oo bariga u soo baxo maya roobab shaqo kuma leh caadi ahaan nibirigu su'aasha ugu badan oo liisweydiiyo adduunka oo dhan waxa weeye muxuu nibirigu xeebta ugu soo caariyaa xeebta u yimaadaa sida la ogsoon yahay intii taariikhda bini aadanka la xusuusto nibirigu xeebta ku soo caarinayay meelo badan bayna ka dhacday waxyaabaha keena ilaa hadda jawaab rasmiya oo culimada sayniska oo kale iyo cilmiga badda ku takhasusay ay isku wada raacsan yihiin ma jirto laakiin dhowr wax bay ku noqnoqotaa waxa ugu caansanaa 2004 daraasad ay samaysay jaamacadda Tasmania ee dalka Australia waxay ku sheegeen in noocyada kalluunka ee la yiraahdo sinni ama sanaani ama duusho Soomaalida u yaqaanaan markay biyaha ay ka buuxaan ay dhanka waqooyi aadaan in nibirigu uu soo dabagalo isdhaho ugaarso kadibna biyihii gunti dhawaayo xeebti uu yimaado halkaas uusan dib uga noqon karin xajmigiisa iyo dhererkiisa darteed okay marka wasiir ma markii u horeysay uu nibirigu xeebaha Soomaaliya ku soo caariday maya way dhacday marar badan waxa ugu caansanaa tiradii ugu badneed koodii bishii 1986 saacadu markay ahayd 7 fiidnimo iyo rubi baa lagu arkay xeebta Saylac tiradii ugu badneed oo nibiri ahayd oo la xusuusto Soomaaliya ay ahayd 22 xabbo oo waliba nooca dhalka ah nooca loo yaqaan pilot hell oo yar yarka ah dhererkiisu kan u dheer wuxuu ahaa 5 mitir iyo bar kuwa kalena waxa ayaan 3 ilaa 4 mitir baa lagu arkay xeebta degmada Saylac laakiin adduunka oo dhan wadamada Mareykanka magaalooyin isteedada xeebaha leh Ingiriiska Australia meel aad u badan Afrika buu caadi ahaan nibirigu inuu soo caariyo waxa kale oo keena maaha inuu kalluunka soo ugaarsaday waxa marmar dhacday inay isagii jihadii badmaaxnimo ka qaldanto oo uu saas dhan u socdo garan waayo xeebta ku yimaado mana noqon karo saa uu soo baxo banaankii ugu yimaado waxa dhacdo marmar ay yiraahdaan intuu aad u wareero dib badan iyo gaarto isagii inuu badamco inuu isdilo sidii banaankii uu ku yimaado waxyaabo badan bay ku macneeyaan okay maadaama tahay wasiirkii kalluumaysiga dawladda Puntland ma la xiriireen degmadii uu ka dhacay uu nibirigu ku soo caariday wax xiriir ma la sameyseen waa la xiriirnay oo waxa weeye gudoomiyaheedii baa nala soo hadlayay sawiradii fiidiyoodii nala soo wadaagay annagana waxa uu sheegay inay dadku ka fogaadaan waxa dhaca nibirigu caadi ahaan markuu soo caariyo xeebta yimaado maalmo yar kadib inuu qarxo uu dilaaco oo taasoo sababta ur aad u daran bacteria ka dhalan karto kulli dilaacana waxa keena uu sameeyo qaraxo kala ah oo qaarkood xataa dhawaqiisa la maqlo waa xayawaan aad u dheer nibirigu waa noolaha ugu weyn adduunka ee maanta jiro la wada og yahay marka inay ka fogaadaan kan hadda xeebta qawligu arkay waxaan aaminsanahay inuu baddi biyihii gunti dhow xeebti ku soo dilaacay sababta uu dilaacsanaa dheecaan iyo waxyaabo kale oo madow milil ah baa ka socday okay wasiir bal adoo mahadsan dadka bulshada Soomaaliyeed nibiri ma wada yaqaanaan oo intooda badan dad maaha xeebaha ama badda wax ka yaqaana dad badan baa jira oo aan nibiri arkin inay dhigta ka maqlaan maahan bal nibiri u sharax in intee buu dherer leeg yahay culayskiisu intee buu dhan yahay waa xayawaan noocee ah nibirigu waa noolaha ugu weyn ee dunida waa noole ka mid ah noolayaasha alle uu badda ku abuuray waa noolaha ugu weyn markaan leeyahay waxa weeye nooca blue hellka la yiraahdo nibiriga buluuga ah dhererkiisu 30 mitir buu gaaraa culayskiisuna wuxuu gaaraa 150,000 oo kiilo
oo 150 tan ah sidaasuu xajmigaas iyo quwaddaas u leeyahay waana iska mucjisooyinka rabbaaniga ah. maxamed jaamac bulaale raadiyaha dowladda Puntland magaalada Garow.